ومحاصل لو كلام دي سلام ويا محرم كان سؤال ka jawaabay hooyaalka taariikheed wax laga barto ku wanaagsan yahay inaad si ugu yar noqdo 2012 ilaa 2013 waxaa jirtay marka laga soo bilaabo October angaabo September 20 ama 15 ilaa August 2013 oo muddo sanad walba dhiman ah dowladda anagu ka tirtanahay xasan sheekh madaxweynaha ka yahay wax kala mayna qabanin oo hawl ah oo inay hagargaamayso oo minjaxaabiso oo ay shirkoon iyo dadnimo dhigto balaan waxaan haystaayna u dhaqaaqin oo mayna qabanin oo hawlihii loo ismarayay halkaas ay xoog wada saartay waxaan ogtahay arrintaasi waxay dhashay naf iyo maal badan oo ku baxay iyo khasaare aan la soo koobi karin oo burbura hase yeeshee markii la soo gaaray August 2013 oo heshiis xadka maalintii uu dhacay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland waxaa la istaa oo dadka Soomaaliyeed maalmada ka mid ahay ay qaateen in arrintaas laga bogsooday oo markaasi uu yimaaday dibna uu dadka Soomaaliyeed u soo noqonayn hase ahaatee hadda sanadka dhawaada arrintii oo kacalaysay dowladda iyada tabarta sare ee xamar joogtaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha guddoonka baarlamaanka oo inta badan la abaabulo oo madaxweynaha ay abaabulaan wax shaqo oo kale waa iyadan mayna qabanin Jubbaland ay ku foognaayeen haddaad hadda i weydiiso socdaalkan ra'iisul wasaaraha weydiisay ra'iisul wasaaraha socdaalkiisa maanta intuu ku maqnaa guddiyaha baarlamaanka Jawaari oo ahaa guddiyaha madaxweyne oo nool hoteela qola civil society waxaa gudaha joogay isagoo ku beegaya booqashada ra'iisul wasaaraha oo meesha ku tegay oo soo hadalkay maamul goboleedyada isagoo marka ay cad tahay in Jubbaland uga jeedo wuxuu wax maamul goboleed ah oo ma jiro marka laga reebo Puntland uu ku darimaanay saagaas uga dadaalay laakiin waxa uu ka jeeday Jubbaland ay ahayd sideedabana dadku meelaha makhaayadaha kama hadlo isagu wax ma go'aamiyey waxa baarlamaan golaha dibadiisa ku go'aamiyaan ayuu u gudoomiyahay waa wax istaqoonka oo waad garan kartaa gudoomiyihii baarlamaanka oo ku-soo madaxweyne oo labadii darajo waddanka ugu weynay saxaafo makhaayadtaa ka jira oo go'aan uuna lahayn uu sheego waa gudoomiye tanna taas oo kale weeye ra'iisul wasaaruhu waa la socday hadda usbuucii dadayday qabanqaabo socdaal uu kismaayo ku tegayo laba arrimood bay ahayd arrin waa wax isticaadi oo dowladda federaalka ah iyo go'aamadeedii iyo tallaabooyinka xumaa ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha guddoonka baarlamaanka iyo baarlamaankan xamarkoodaba ay ku khalkhalgelinayeen ku minjaxaabinayeen Jubbaland in wax laga gudbay laga dhigo oo Jubbaland bal inay u hoggaansanto qolada federaalka ah ay ahayd waxaa la dib kale taasi labaadna waxay ahayd minjaxaabo aad u weyn iyo sidii loo qorayo oo haddii ay dhacdo dowlad goboleedka Jubbaland kurigiisa dad ayna ka soo baxay oo ah cabashooyinka jira oo lagu dabaqayo durbaankan xamar laga garaacayo oo waraysi hore ku siiyey aan kaga hadlay oo xaqiiqdu ay tahay Jubbaland wax khilaaf oo ka jira inuu la jiro khilaafkii wuxuu ka jiraa oo abuuraya waa xamar oo xildhibaano baana doonaysa in la suurtageliyo oo baarlamaanka la furo oo tiro lagu daro oo dabadeedna haddana mar kale la yidhaahdo dadka cabanaya tiraha lagu daro dabadeedna arrintaasi ay fashi u horseedo dowlad goboleedka Jubbaland oo dad ayna ka soo bixi karin ku rido waa xagagaacin rasmi ah arrintaasi waa taas dadka reer Jubbalandna saasaan ugu sheegayaa uguna cadaynayaa mas-uuliyiinta iyo maamulka Jubbalandna waxaan leeyahay haddii aad qaadataan durbaanka xamar laga garaacayo iyo dadka garaacaya waxaa kala busheega ah oo shaqoolka ah iyo dadka ay idinla doonayaanna ku dhacdaan haddaad qaadataan haddee waxaad garteen mas-uuliyiintii dadka reer Jubbaland idiin yimadeen waxaana idinku adkaynayaa
shirqoolka iyo imtixaamadaas iyo darinka laydin koolayo inaad ka digtoonaataan balaa wax khilaafii kama jira dadkeedu maamul ku dhisay baarlamaan baa odayaasheeda dhaqanku qaybsamay dowladda soomaaliyeed mar labaad bay sidii jirjiroola aysa soo maqiiqaysaa waa si goobjooga ka ahayd ee barakaysay bulshada caalamku way joogtay midiyaas way joogtay taabacad alcarab baa joogay dadka soomaaliyeed dhan baa joogay goobjoog baa loo wada ahaa waa laga markhaati dhacay ilaa dhammaan sidii transparensiga ahaa daahfurnaanta ay ka buukatay baarlamaanka loo soo xiray baa la garanayaa arrintaas waa shirqool laydin maleegayo haddaad ku dhacdaan maalin walba durbaan baa la samaynayaa oo maanta haddaad baarlamaanka furtaan oo aad tidhaahdaan maanta xadar naga doonayaan siinaynaa maalin walba qolaa cabanaysaa la odhanayaa waana wax furaan doona fashil bayna aakhirka ku dambayn doontaa halkan waxaa kaloo rabaa inaad ka caddeeyo oo hoosta ka xariiqo dadka reer jubbaland iyo dowladoodu midna magan mama aha dowlad goboleed inay dowladda federaalka ka tirsan ninka la yidhaha jawaari magan mama aha isaguna intaa ha ogaado iyaguna taas ha garteen jawaarina waxaan dhihi lahaa waa gudoomiye wax baarlamaanu golaha ku go-aamiyey ayuu gudoomiyaaye ay iska daayo sida uu u dhaqmayo banaanada uga dhaqmayo uu wax go-aamiyana maaha waa gudoon meesha uu wax ku gudoomiyo baarlamaanku wax ku go-aamiyana waa golaha shacabka xaruntiisa